degmo ku taala Colombia waxay ku dhawaaqday Sabtidii 15 Juun 2019 inay dhigto laba rikoodh oo kamid ah oo midkood inay sameeyaan koobka ugu weyn ee qaxwada lagu cabo adduunka, halka rikoodh labaad ay doonayaan inay dhigaan inuu yahay inay diyaariyaan dhacdada ugu weyn ee qaxwo lagu dhadhamiyo dunida. koobkan weyn waxaa laga dhisay barxad weyn oo ku taala dowladda hoose ee magaalada Tashantishna, waxaana deegaan ku yaala dhul buraley ah oo lagu beero bunka gudaha Colombia. dadkii dhacdadan abaabulay waxay sheegeen inay isku dayayaan inay xaqiijiyaan laba rikoodh oo danta laga leeyahay ay tahay in tooshka lagu ifiyo dhaqanka qaxwada iyo muhiimadda dadka beeraleyda ah ee deegaanka ay leeyihiin, waa sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Reuters. laakiin deegaanka waxaa laga rabaa inay muddo sugaan si guulaha ay gaaraan loo xaqiijiyo iyo laba rikoodh ay isku dayaan inay dhigaan oo la hubinayo in cid ka sarreysa aanay jirin. mas-uul uu la hadlay bogga dhacdooyinka adduunka ee Guinness World Records ayaa sheegay in deegaanka laga rabo caddayn badan inta aan lagu dhawaaqin taajidooda oo aan buugga lagu daabicin.